wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyay ku howlaneed dhismaha dawladaha hoose ayaa maanta degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waxay si rasmi ah ugu soo gabagabaysay doorashooyinka golaha deegaanka degmada Xudur waxaana maanta qabsoontay doorashada gudoomiyaha degmada Xudur iyo ku-xigeenadiisa waxaana u tartamay Maxamed Macalin Axmed oo hore u ahaa gudoomiyaha degmada Xudur haatana mar kale ku guuleystay iyo Maxamed Cabdiraxmaan oo xubin ka ah gudiyada gobolka Boqol doorashadan ayaa waxaa goobjoog ah wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed oo howlo shaqo u jooga degmada Xudur sidoo kale doorashada ayaa waxaa goobjoog ah qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka degmada Xudur 26 mudane oo ah golaha deegaanka ee laga soo doortay degmada Xudur ayaa u codeeyay gudoomiyaha degmada Xudur iyo ku-xigeenadiisa waxaana nidaamka codbixinta uu ahaa codad qarsoodi ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha deegaanka Xudur Muxudiin Khaliif ayaa ku dhawaaqay natiijadii ka dhalatay codadkii ay dhiibteen 26 mudane oo ah golaha deegaanka degmada Xudur kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada ayaa halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha la doortay ee degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed iyo ku-xigeenkiisa waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan doorashada إيران فراسنا أنا وعدي تاتي تكني بقولي جزء رافضي هذا بقولي سيدي سوسين كمبري أكمل نجى هم إيران فراسنا درجنا بيوم معنا ترتمي مني لما وعدي ترتمي هايني بقولي جزء رافضي ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Madoobe Nuno Maxamed ayaa u mahadnaqay dadkii gacan ka geystay inay qabsoonto doorashada golaha deegaanka degmada Xudur sidoo kalena waxa uu gudoonsiiyay xeer hoosaadyada nidaamka dawladaha hoose ee lagu maamuli doono deegaanada hoos yimaada degmada Xudur ilaahay maaragtay aniga aqbalo mayba marka gudiga saacadun la ka bilaawa gudiyada suubsaasan حفلدين إسنعه كمسؤولة إسنعه مرتي ديار ساسا ما يشرفين لها أمان لها دتك ترتمي ما يش أمان لها دتك تنازلي ما أمان لها دتك حنبلية ديمقراطية دلشاوت أبتة التنو هذه لما أنتيو لن ترتم فنا أصبح من لها هذا فنا دور الشدة لكن إلا ترتم لكشال قوليس ده ناس هم بليايا ما يبوا عالم ولا كذا غموه البحنمو أقومه هرمروه ما إلا ددنموه غير حضور ما يموجينا ددنمي موجيان هنتي الله تعبدو كره إذا أما سنتين dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waa maamulkii ugu horeeyay oo ay ka hirgasho dhismaha dawladaha hoose gobolka Boqol gaar ahaan degmada Xudur ayaana ah degmadii ugu horeysay oo loo dhiso golo deegaan waxaana sidoo kale sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed si xigi doona degmada Ceelberde ee Boqol ka tirsan iyo Baydhabo iyo Bardaale ee gobolka Baay ah iyo sidoo kale degmada Baraawe oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Cabdinaasir Musharraf telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland degmada Xudur ee gobolka Boqol